بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سودو هذا دمان بشدة صوماليات رجي الدمر ميلا كسبنتين دنيا دعالة ده وعبد السلام جنتلمان إبراهيم مبارك صاحب كيسر سركي ميديو صاحب كي كوبان إن شاء الله تعالى عاو برنامج شفرة بدن يا أخبار فربضان بان برتن اللي وداقي دونام انت أنا نورت أخبار تسودين وحن شعلها صاحبك إبراهيم إنه بشدة الصوماليات سلام طبعا كوالك نقا داوان يكون الداوان دونا بقى aad ummada Soomaaliyeed meel walba joogtaba waqtigu haydin waxnaado Allah idin karaameeyo Allah idin sharfo waanu idin jecelay sida noo taageertana noo garab taagantiin ummada Soomaaliyeed ay meel walba noo garab taagantay ee ay noo salaanto ee qalbiga furan noogu soo salaanto ee ay halka nagala shaqeyso aad baan wala idin salaamaya dhamaantiin waan jecelay saa noo jeceshiin Allah idin jecelaado Allah idin xafido awlaada Ilaahay qurbaha ma garanaysaa idinku dhib yareeyo waad baan idin salaamaya guuliyo gobonimo intaana salaanta ka sii bixin waxaan aniguna u mahadnaq balaaran u jeedinayaa bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Belgium ma sha Allah dabcan de lama waayo laakiinse majority iyo bulshada Soomaaliyeed ee dunida dacaladeeda ku sugan ee rag iyo dumar bale oo la fadhiyo kuwa dalkii jooga waxaan Allah raxmaanka ha karaameeyo dalkiina ha dajiyo guuliyo gobonimo xukuumadeena dabcan uu hogaamiye madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Allah raxmaanka ha guuleeyo ha quweeyo howlaha la wadana Allah raxmaanka ha ku guuleeyo sidoo kale waxaan iyagana aan u duceynayaa ma sha Allah dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee iyaguna qurbaha ku wada nool meel joogan marka intaanan hortaas waa intii ducada iyo hambalyada taasad rag horta ceeliyaan ahayn ma sha Allah rag waaweyn oo meel ku maqan dabcan wixii la kulmaanba waa inay bulshada u soo tabiyaan seen la wada soconayba ma sha Allah anaga saad nooga barateen horta had iyo jeer waxaan nooga barateen anagoo faanaan ku darin laakiin se muxuu dhaninki jiray abwaanka nin isfaansho waa ruus noogtay maruu ka daba tegay Cabdiqaadir Xirsi Yamyam wuxuu yidhi ma fog baa tidhi nin ammaanti miirsha riis maashe weeyaan mid kalaa ka daba tidhi haddii ay ku moosaan kartaa la isku muujaan waynu la wada soconayo ma sha Allah dee Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa noogu yimid dalka Belgium isagoo u socday arrimo wadanka iyo dalka iyo dadkaba anfacayo oo shirka ajandiisu ahaa dib u dhiska iyo xoojinta amniga iyo ciidamada ma sha Allah dawladdeena iyo Soomaaliya taas waa guul oo wax alaalo wixii guula Ra'iisul Wasaarena ma sha Allah waan la kulanay kulankeygina idinka arkay ma sha Allah halka de waaban haysanaaba sawiradiyo page-keena nabadii nolol baad ku arkaysaan bulshaduna way u heelanayd oo waxaan iyagana u hambaleynayaa bulshadii Soomaaliyeed ay isaga yimi dalalka dariska iyo dalalkan haday tahay Holland xitaa kuwa Ingiriiska ka yimi oo meesha isku aragnay iyo dhammaan bulshadii Soomaaliyeed ee noo dabaaldegisay laakiin ma jeclaan jirin waa ka soo saaxiibkii Ibrahim kelmad la yiraahdo laakiin ka xanaaqa umada wixii xun laakiin walaalayaal inaanu ka qarino waanu reer waqooyi baan noqonay dabcan waqooyi markaan leeyahay qabiil ka hadlayno Soomaali oo dhan waan laakiin si haddana dadku de way si kala yihiin oo anagu waxba ma qarino runta fiican run baanu loogu yimaadaa waxaanu jeclayn waxa umadu jeceshahay umada Soomaali waxay jeceshahay waanu jeclayn oo maxay ah waxaanu jeclayn in xaflad weyn oo ballaaran oo umada Soomaaliyeed halka isugu timi Holland ka timi ee Jarmal ka timi ee ka timi Austria ka timi ee Ingiriiska ka timi ee ka yimi qaar dunida dacaleeda ma baqaasba karey wax allaalo wixii maanta halka nagu salaamayay ee wadanadan midowga Yurub oo dhan ka yimi in xaflad weyn oo balaaran loo qabto nasiib darro ma dhicin sababahay ku dhici waayeen waan idin sheegay sababahay ku dhici waayeen waxa al-awwal ka oo kowka meel kasta Soomaaliya mas bay noogu jireen wax la yiraahdo mas war anaga qaar in badan ma noodo jirteen hortaniyo meedan waxbaba waxaan aragno ayaanu dhaliilnaa anaga waxbana looma tilmaamo ficiladan aragnay qofkan hadalkiisa qowlkiisa iyo hadalkiisa maqalna waxbaanu ka sheegnaa wixii aanu aragnana waanu dhaliilnaa horta safiirino ma joogo Soomaaliya dalka lahayd Belgium waxa inoo jooga safiir qaran dumisa oo dib socda oo waliba daba dhilifa aabaha musuqmaasuqana aan fulayna ah
ma u malaynaysaan soomaaliya qarandumis waxba magaceeda aan ka sheegi maayo dib u socod inay safiirkeenna soomaaliyeed ama eu baaba sheeganayaa safiirka biljam ay bartaa kaga adkaadeen waaryaadheen biljam bay kaga adkaadeen biljam aynu ognahay in lagu jiro xaalad emergency-a dalkuba uu ku jirayba dabcan hataa waddankan ka imiya faransiisku wuxuu ku jiraaba xaalad amnibu xaalad waxaa la dhahaa emergency state ama meershilo wax la dhahdo oo marbaa qaraxyo wax ka dhaceen soomaaliya iska daayib dadka biljamka ee dhaladka madaxa ma taagi karaan maca marookiyaanka annaga run idiin sheegane bartan la joogaa madaxa ma taagi karaan laakiin ujeeddaa ka dambeysay in maanta halkaa dadkii kusoo logo-aan annagoo afka shacabkaan ku hadalnaa oo dadkii xafladii ilan ra-iisul wasaaruhu dhammaan ummadda annagu lacag maanaa soo doonan xilna ma raadino ummadda soomaaliyed wayna taqaanaa laakiinse waxaanu jecelnahay dadku waxay ku farxayaan dadku waxay ku farxi lahaayeen xaflad weyn oo loo qabto maxayna bahdilay soomaaliya weligeen waxaynu ku jirnaa qol yaroo madow iyo guri yaroo madow ninka ra-iisul wasaaraha ahna laga soo ninka ah allahu mustacaan safiirkabaa wixii maanta halkaa biljam ka dhacay ee cadowgii nabad iyo nolol dabada haystanee ku farxeen isagaa ka dambeeyey oo diiday in dadkii xaflad loo qabto ina yaroo la yidhaahdo cumar oo xogaya u ahoo cumar yare la yidhaahdana oo ra-iisul wasaaraha waa xoghaye waa shaydaan usii saaxiibkii ma run baa doonaysan mise soomaaliya been waanu kala hadalnay oo ra-iisul wasaaruhu noo soo diray oo mar kasta xitaa ra-iisul wasaaruhu nambaradiisu war waa kuwa waxaan la yidhaahda safiirkani wuxuu ka soo hadhay nimankii la odhan jiray damul waa madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo mudane madaxweyne mudane ra-iisul wasaare haddeer nimankii kaa yimi baanu waa kuwaanu aan kugula soo kulannay the hotel meesha la yidhaahda waa ibraahim waa cabsanaan gentleman haradar cidna anagu kama baydhbaydhno ra-iisul wasaarahayga baa tee waanu ku jecelnahay laakiinse jawaasiista kugu hoos jirta eed qaarna safiirada ka soo dhigateen qaarna aad ka soo dhigateen xoghayayaasha eed kii waan la dagaalamaynayba een ummadda fiqi baa la yidhahdaa walaalayaal wax magaciisa sheeg ummadda u sheeg siciid cali fiqi waa ninkan safiirka kow horta ummadda soomaaliyeed waxaan caadi isu cadaynaya intaana dhammayn soomaaliya kuwa halka naga dhegaysanaya iyo kuwana dhegaysan doonow ma idinla qurux badneed iyo kuwii biljamka noogu yimiyow in la yidhaahdo ra-iisul wasaaraha xaflad looma qaban karo waxa laga baqanaya idinkaan su-aal idin weydiinaya ha beqlayso group iyo waxa laga baqanaya amni oo ma soomaali baa amniga biljam wax yeeli karaa bal ninka safiirka ee yidhi war waxa laga baqanaya amniga ra-iisul wasaaraha looga baqanayaa biljam kaasaa inoo amar war raganimadu waa cabaar oo cagaha dhulka lagu xejiyo annagoo shaksiyaddiisa waxba nagama galin waa wadaad waa hebel kale nin baqanayaa dunida waxba kama noqdo mana taliyo horumarna ma samay nin laaluush bixiyo inama yar ka baqaana adaraal waxama taro oo la yidhaahdo u soo hanjabo shaydaan wisusay oo aan bisad ka dhignay iyo shaydaan wisusayba ma shaydaan wisusayba dee adigu idinku idinka adkaaday idinkan laftigiinna ayuu idinka adkaaday waa sheeko raqiisa dad baa ladhan uga yimi holan baa looga yimi jarmal baa looga yimi denmark baa looga yimi bilyanis dad ummad soomaaliyeed halkaasaa qaar caawa nooliyadoodii waxay ku meelay seexdaan lahayn annagiiba canaantu nagu dhacaysay war nabad iyo nolol difaac baa u haydeen war ma sidana dadkii albaaba askarigii halkan ilaalinayay maxaad noo sheegaysaa maxaa loo sheegay balokaasa ibrahim beenaal markhaati yusufiya waar jantamaano maxaa noo sheegaysa ilaa february baanu qaylinayn waad ogtiin soomaaliya wax alaalo waxaanu ama soomaali dhan isla marnay waar cabsanaan jidalmaano dibaddaasaan nagula hadlaya askari biljamaba waa ka halkan taagan dadka dib u tuurayeen oo loo sii dayn waaye askariga meel xafladaba u qabatid safiir haddaanad intaa maxaad safiir ku tahay oo dalkaad ugu joogtaa askartii biljamkaa meel kasta taagan sooti u dheelkaba dadku hor taaganaan ibraahim baan intaan uga baxaya mid kuwaa ka daran baan ogahay oon kadablo abnayn oo intuu kashbacay oo kashbacow kama yeeshay oo duul karaamiya dilbale kiis ka buuxsaday kashii dhaha islaamu naftaa kii lahaa gaday waxaan idiin sheegay wadda soomaaliyeed wallaahi wax allaale wax dee interestiya dee ra-iisul wasaaraha ad arkaysaan oo ahlan wasahlan oo jaaliyadda waanu mahad celinaynaa maasha allah sharaf iyo karaamay leeyihiin wax dee dan interesta maanu lahayn nin kastoo qarannimadana qofunbaa magaca ka xumaya ra-iisul wasaaro ma haysano maasha allah allaha karaameeyo hawl qaran buu wadaa
laakiinse haddii kuwa ku xiiran ama kuwii u xil saarnaa inay shacabka soo dhoweeyaan inay xafladaha u qabtaan kuwii xoghayaha iska dhigayay hadduu shaydaan usii la shaqaynaya bal ka warrama oo shaydaan ususay hadalkiisii la maqlayaba oo annaga iyo wadaniintii soomaaliyeed ee ku farxileed lilay waama biljam baa dee soomaaliya ile hadalka waynu caddaynaynaa biljam baa joognaayo soomaali baa laga baqanaya oo xaflad loo qaban kari waaya ninka safiirkaa ku marmarsoonaya waa qarandumis cabdisalaan hadalkaa wuu idiin dul maray laakiin anigu waxaan idiin sheegayaa isagoo cad baan idiin sheego saafiya ra-iisul wasaaraha qaranka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa wuxuu ihi war nimankan ibraahim iyo cabdisalaan waxaanu hawlaanu ka wada hadlaynaa ee lambarka ka qoro kow wuuna dagaalayy wuuna huruufayey waa ka daqiiqadna shaydaan wisusay buu ula hadlayay annagoo hudheelka ku jirnaa iyo ciyaalkii shaydaan wisusay oo meeshii jooga markaasaa nalala hadlayay oo lahaa war ninkan ra-iisul wasaaradii ku ballamay shaydaan wisusay buu la xidhiidhaaba sawkan la hadlaya weli idinku miyaa waalantiin hana ceebaynina maxaa idin soo lugooyey ummadda soomaali waxyaala cajiiba oo aanan fahansanaynba show xukuumaddani iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayriye madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo dad baa sagaal midab kula socda 9 midab ama xogayaha laga dhigo oo nabaarkiiba karinba gebigeygiiba ama qaar safiira sheeganayaba hoole war waa kuwii nabad iyo nolol ummadii shacabka tor soomaaliyeed aad baan ugu mahadnaqay man laa yashkuru naas laa yashkuru lah shacabkow waa mahadsantiin waanu idin jecelnay waa daashin laakiinse masaska yaree hoose wallaahi alcadiim masasku way farabadeen ra-iisul wasaarahay la socdeenba ra-iisul wasaarihii dhammaan ra-iisul wasaare xasan cali khayr war miyuu haleelaya nin madaxa maasha allah meesha waan ugu galnay waanu codsayadii waanu gudbinay fariimihii dadku noo maxaabiistii ugandha dabacan qaar kaloo yamana oo xalayto dhallinyarada noo annagu dadkaasun baan u hadalaa waanu hadlayni balse in dadkii shacabka ahaa hudheel hortiinta midba meel loo tuuro oo askartii lagala baqay kuwana lagu tuurtuuro marba lahada qofooma soo gelaysid kan kale oo dadkii annagiina canaantaan daada reer halkaasaan annaguna canaantii waynu iska rogaynay shacabow xukuumadda nabad iyo nolol waynu la shaqaynayna waanay guulaysanaysaa jawaasiis oo dhanna waynu iska qabanayna safiirkan yaree biljam joogaano runtaa fiicanoo wuxuu ka soo hadhay xukuumaddii xasan sheekh maxamed ee dekedeedii berbere wareejisay ee gebigeeduba aabbaha musuq maasuqa ahayd ayuu ka soo hadhay waana nin la shaqeeya annagu soo iminka saacaddaa biljam kuma sugnin ilaahay baanu ka baqnaa wuxuu la shaqeeyaa shaydaan wisusay waayo waxa shaydaan wisusay ku hadlo ayuu abu qaadanayaaba shaydaan wisusay baa maqlayseen faataabaq meelaha suuqaba la soo geliyay qaar baa war adeerayaal reer biljamow dee kuwa dadka biljam joogo oo dadka u warrama oo idinkuna dabcan waa warrami doontaan miyaanay biljam xaalad emergency oo deg degaba ku jirinba ma ninka holland joogay halkaa iyo gruubkiis iyo inamada yaroo jarmal ka soo dirsaday ee waanu garan karaynaa iyo inama yaroo marna dhinacan u hadla marna dhinacan u hadla oo la soo diray oo safiirku le hebel kan u yeedha war kuwan waa kuwii nabad iyo nololo xukuumadda iyo hayaa waa nimankii dee shaydaan wasiye ka hadli jiray shaydaan wasiye down adiguna safiir down baanu ku leenahay fifa ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo nabad iyo nolol iyo dalka iyo qaranka taasaan anagu u shaqeynay halkan waxaa lee mariyey dacwad ay qolo reer jarmaley waxay yidhahdeen safaaradda barliin ibraahimow iyo haddaad ra-iisul wasaaraha isragtaan horta mar walba ummadda soomaaliyeed waxaanu u hadalnaa un dadka dan kaleba ma lihinba dabeedna waxay idhahdeen war jarmal safaaraddii barliin wax allaale waxay ka shaqaysaa ma jirto jarmalkuna ma aqoonsanaa markaa dowladda jarmalka halala hadlo tii annagoo ku mashquulsan baanu biljamka nimi maxaanu ogaanay haddaba biljamka markaanu nimaanu qiso ogaani waxaa la yidhi horta toos baynu annagu ummadda soomaaliyeed eeg halkaasaan wallahi runteedii ka sheegayna waxaa la yidhi safaaraddu nigerian iyo gaana iyo cameroon ayay siisaa warqadda aqoonsiga haye lacag baa lagu kala qaataa waxaanu lahayn waa ra-iisul wasaaraha noo imanaya balukaadiya soomaaliyeed maye dacwadaasaa jirto oo dacwadaasaa jirto waa safaaradi ma jirto
maxaanu aragnay haddaba caawa life baaban wuxuu soo aragnay maxaanu aragnay annagoo taagan oo ummadii alla cise iyo sharaf iyo karaamaha siiyo raallina ahaada ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed wallahi loo timi imada saasay waryaahe ma ku qaadaa kaale halkan kafee ka soo cab gaadhiga ma kugu qaada umaanu baahnayn soo dhoweyn waanu iska salsalaamayna oo okay oo waa kaasoo sawiraan wadageli mid baa muhiima safiirkii waxaana loo ka sheegayey ayaa intuu soo baxo inan qabiilkeeda sheegayo inantii reer hebel ee UK ka timi waxba dee qabiil magacii aanu sheegnaa muhiim aha inantii reer hebel ee UK ka timi meeday soo gal markii ugu dambeysay ee ra-iisul wasaarihii qarankuna la kulmay ayuu waxaad moodaa sidii dumarkii ayuu gaadh naga hayaa markaasuu ra-iisul wasaare wuxuu ihi wax yar nimankana la sheekaysana wax yar naga durug wallahi baanu beedii sheegin oo bilaahi oo tallaahi ilaahay bay goog markaasaa cabdisalaan bay garabta markaa ra-iisul wasaarihii anaa markaa hadalka ku horreeyo waan la yara hadlayay sidaa intuu noo egay ayuu saa noo huruufay mas-uuli waqtigii nagu dhammaaday baxano waxaanu kala hadlaynina ilaahay baan ra-iisul wasaaruna wuu naga qoranayey wallahi wuu naga qoranayey ra-iisul wasaarahuna wuuna dhegaysan doonaa nabad iyo nololna wayna dhegaysan doontaa inankaa yare dee daarishada cumar yare xayawaankaa xogaya waana waa adigaad albaabka naga soo hortaagnaaba u gal imika oo dib u dhegayso caawana waad joogtaa kuleya beritaa tagi doontaa waxaanu kala hadlin maxaabiista uganda ku xidhan bal ilaahay baan idinku dhaarshay soomaaliya iyo yaman wuu naga qortay warqad noo sheegeen iyo inaanu nahno dalka horumarkiisa waanu idiin duceynaa dadkuna way taageersanyiin duco wixii kalaba deelan xafladii waa la baajiyo xafladana safiirkaa baajiyo ogaanu baajiyey oo doonaya dadka inuu boqojiyo cidna aan ixtiraamin annagiina uu nagu daray dee warag waa inay runta iska sheegaan baa waleel qurux badan oo waxyaabaha qaar waxaanu nala dagaalamayana waxa weeyaan war nimanka runta ka hadla ee waxa noocaas safiirkaas waa fadhiid waa qarandumis runtaa fiican waa dibu socod waxaa ka daran inaan kaa yara xooghayaha waa xogayi dhamaaya cumar yaraa laydhaa wallaahi oo bilaahi oo tallaahi haddaad sharaf iyo karaamo soomaaliya noo haysaan dhawn cumar yare halkaa kusoo qora dhawn cumar yare soo qora ilaahay baan xoogayana uu sheeganayaa xoogayuu sheeganaya dhawn cumar yare halkaa igu soo qora haddaad in cisiya noo haysaan annagu ku dhaarshe waa xaaraan kunaax fiqi wey ilaahay baan idinku dhaarshe cumar yarana xoghayii buu sheeganayaa ra-iisul wasaaraha malaa moryaano isbaaro haysan jiray annagiina waxaanu kala hadlaynay waxa weeyaan dan ummadda soomaaliya wax kale ay soo qorinaya dhawn cumar yare halkaa igu soo qora waxaanu kala hadlaynay oo ilaahay nagu ogi maxaabiista maqoran isku qoran maxaabiista uganda ku xidhan reer biljam wayna maqli doonaan waana nala belinsayn maasha allah shacabka reer biljam oo xafladay adigu maasha allah wayna soriyin doonaan insha allahu tacaala waanu tegi doonaa wallaahi iyagaa noo soo gudbiyey oo warqadii halkan lagu hayaa 13 sannadood dhalinyaro soomaaliyeed oo ku xidhan dalka yaman oo ra-iisul wasaarahan u gudbino oo naga qortay nimankaasu dowladdii xasan sheekh shariif baa xitaa warqad iyadoo u soo qortay oo la doonaya in la sii daayo ayuu xasan sheekh maxamuud yimid waa yaman bay ku xidheen garta waa inama soomaaliya waa 13 sannadood waa 13 sannadood wallahi markii ra-iisul wasaaruhu madaxu isqabsaday halkaa igu qora dhawn cumar yare caaw markaayna inuu safiirku wariye uu soo daayo inan yaroo maalina idhaahda ra-iisul wasaare waxa ma qaban ciidanka maxaa loo dhisaya wariye annagana la yidhaahdo miyayna qabataa waxaana annaga nagumay samayn ra-iisul wasaaraha eedda ma laha waxa eedda koowaad le macal cumar yare ma laha waa safiirka wixii soomaali ku dhacay ee bahadilaad ahayd ee halkaa lagu damaashaadi waayey weligiin miya aragteen taa cabdisalaam oo inama soomaaliyeed la taagan yihiin dibadda ayaa albaabkan istaagay safiir dhan isagu wallahi cabdisalaan iyuu maqlayn markaa inamo soomaaliyeed baaba lahaa cabdisalaan gentleman sawir baanu kula gelaynaa waxbay ka sheekaynayeen oo dee iska faraxsan yurubtaa iyo meele ka yimi markaasaan albaabka istaagay safiirkaasoo istaagay markaasuu yihi inantii qolada ahayd waa reer soomaaliyeed qabiilkaa inantii ahayd ee halkaa ka timi meeday maxaad u qarinaysaaba sheegdee ma sheegaye markaasaa qabiil ahaan markaasa soo soco waar ilaahay mana dilaya waa safiirku wuxuu soo sii daynaya haddii anugu qolo ma dhagaystay waa taqaanaa soomaaliya waxa qabiilka ra-iisul wasaaraha inantu weeyaan
wallahi iyada macabartaa ka sheegaya iyada khalad ma laha ma laha inaan anigu waxma sheegay laakiin waa ra-iisul wasaaraha la qabiil tahay soo daaya waa inaan mursaday waan halkaasaan markaasaa inoo ah safiir inoo ah ra-iisul wasaaruhu kow maba dhibin war dadka dad baa xumeeya ra-iisul wasaaruhu dee mursade ra-iisul wasaare maaha qabiilna maaha waa ra-iisul wasaare qaran siduu yidhaahdaa nin safiira ilaahay baan ku dharshay soomaali soo daaya inantaa ingiriis ka timi ee reer hebel ee ra-iisul wasaaraha ay isku qoladayin waanu taaganoo waanu fadhinaa noocaasa noo safiira annagana marka laba askari baaba naga daba kaxaystayba wallahi baana been idiin sheegane intuu laba askari naga daba kaxaystayba war annaguma mucaarid baanu annagaa mucaarida waanu ogeedeen soomaaliya bartaasaanu nabadii nolol ilaa 30 kaba kalayn waxaasoo dhanna waa safiirka masaa wuxuu ku leeyahay maxay dee ka hadlayaanoo war xildhibaama 3 minute 4 minute baa idiin hadlay noocaasaa walaal mid kaloo ka daran baan idiin ogey markaan gudaha galnay hoolka galnay wasiirka amniga qaranka allaha xafido allaha karaameeyo madaxda qaranka oo dhanna allaha ciseeyo mana diidanin dowladdeeda ismana bedelno ibraahimkii cabdisalaamkii aad taqaaneen baanu nahay waxa dhacday gudaha markaan galay ayaan waxaan yara dhegaystay nin markaasaa shaydaan wiswisay ayaa safiirka laftiisa telefoon uga hanjabaya waqtisooyin aad iyo aad maskaxdayda u waalay warma safiir soomaaliyeed iyo shaydaan wiswisay waa nala taqaanaan ayaa telefoon kala hadlay markaasuu yidhi haye ma soo gebagabaysay dee maxaa noo hadhay maxaanu ka hadalnaa soomaaliyey war xanaaqsanay wallahi anigu idinmana dhegaysan karo war cabdisalaan loo sii hadlo ma daadan guuriyo gabanimo aad iyo aad baa mahadsantihiin walaalayaal maasha allah waxaan halkaa usoo galay leefka waxaynu raali gelino ummadii soomaaliyeed ee muxubada iyo kalgacalka iyo wanaagga ra-iisul wasaarahooda iyo xukuumadooda nabad iyo nolol ugu yimid ninkanna nabad iyo nololna mu ahayn walaalayaal annaga xaal iyo boolojiisnin siinay cumarna tuu sameynaya ra-iisul wasaaraha xogayaa waana waxa weeye waa cumar yaraa la yidhaahdaa wan yaro isaga maba ciilba uma qabo safiirka uu la soo hadlaya shaydaan wisfuuleye naga soo dhammeeno hadda ummad soomaaliyeed oo waaweyn oo dad yara soo raacay aniga cabdisalaan maxaan iskana bas baanu sii raaci karnaa gaari baa imika nala ku qaadayaa macna niman dee fudud baanu nay oo caadiya hooyooyin waaweyn ayaanu la sheekaysanayni odayaal waaweyn baanu la sheekaysanayni denmark baanu ka nimi maxay lahayn sweden baanu ka nimi dee maxaa dadkiiba annagayna orta runtaa fiican waanu faanaynaaba haddaan doono dadku soomaalinimay nagu jecelyiin ummaddii ilaahay ee bartaa timiba cabashadii iyo canaantii war annaga aad dusha naga saaraysayn war nabadii nool war taageerayaasheedii war askartii birjamkaana lagu belamiye war sonagan meeshii gali karla waxa weeyaan oo dhibtaasoo dhan inoogu wacan oo soomaali u geystay qaran kastoo soomaaliyeedna qof xunoo lagama waayeba maxamed siyaad barre waxaa la odhan jiray waxaanuu sameeyey markaasaa la odhan jiray war muu samaynine allahu naxaris kuwa ka hoose yaa maxamed siyaad barre dembiga u keeni jiray dee askari saajin tuulo jooga dadkan dembiga madaxda qaranka ka hoos sameeya inay madaxda qaranku nala ogaato ayaanu annagu u baahanay shacabka soomaaliyeed taa dareemaan guliyo gobonimo walaalayaal isku soo duuduubo isku soo xooriyo waddanka lahada biljamka safiirinooma joogo soomaaliya laakiin dad soomaaliyeed oo fiican oo wadaniina ayaa oo dun wanaagsan aadna waanu mahadcelin oo weliba majoritigoodu wada positive oo nabad iyo nolol iyo dowladnimada jecel ayaa walaahi jooga waxaanu qabaa waddanada soomaaliyeed waxaana dalalkan dibadda oo dhan inay dadka soomaaliyeed wadaniin yihiin laakiinse meel kastaba mid xunoo lama waayo ka soo hadhay kuwii qarandumiska ahaa ninkani ilaa safiir wuxuu ahaa tii xasan sheekh maxamuud waaba khaladba maxaaba safiirada waa la bedelaaba halkaasaanu kuu marinaya ra-iisul wasaare ninkaa ku ag taagnaa aad moodaysay inaanu lacag ka soo dhacnay isma naqaan ninkanna jarmal buu ku nool yahay annaguna faransiis baanu ku nool nahay wax kala nagumuu haysan oo nagumuu hiifayn inankiilaa u soo gelinayna uu u yeedhayna waxa weeyaan waa diba socod ummadda dhegaysta idinka laftigiinu nabad iyo nolol dadka idin jecel haddaa maalin kastaba dadka isnacsiisaan ood marna tahdaan qabyaalad baanu la dagaalamaynaa marna safiirkiina uu ku idhaahdo inantaa reer hebel soo daa tees ma qabanayso bilaahi caleyg tii reerkaaga ahaydna waa la soo daynayaa oo taa soo daa
meesha ma qabiil baynu ku wadni mise qaran baynu mise nabadiyo nolol baynu isma qabanaysa ninka naga soo bedela waanad maqlaysid ra-iisul wasaare annagaana labadeeda dhegood ku maqlin caddaynteedina waanu haynaa caddaynteedii oo cadna waanu haynaa haddaad doonaysna tirac dama kusii samee inantii ingiriis ka timi bahed inantii reer hebel ma joogtaa soo daaya oo ummaduma reer hebel baa maada ra-iisul wasaare waxa ka daran oo ummadda soomaaliyeed wallaahi baanan waxba idinka qarinayni odayaal soomaaliyeed oo meesha taagtaagan ba waxay idhahdeen war inamadani dan soomaaliyeed bay kala hadlayaane aynu gudbino wallahi odayaal baan sii daayay soomaaliya runtaa fiican aad iyo aad odayaal soomaaliyeed sharaf leh axmed waad ila soo hadlaysay axmed cumar dabka iga dhacay waa laga raali ahow ninkaa yare waa nabad iyo nolol waa niiro fariida waad soo garaacaysay saaxib safiirka madaxa nagaga taagnaaba odayaal soomaaliyeedna wayna sii daayeen bilqaybta ilaahi ummadda soomaaliyeed baa nalaba shaqaynaysayba nimankii dhammaayaan safaaradda sheeganaya lahaa safiirba maca shaqaalahooda wax isla ogaayeen beed dibaddaabana loo turo waa kaasoo ibraahim wallahi inaan been ka samaynayn biljam baanan la joogaa welina ra-iisul wasaaruhu joogaa waar indha laga baqaa ilaahay bay ku yaalaan safiir mana baqanay sida waxaad la shaqaynaysay dibu socod iyo qarandumis ummadda soomaaliyeedna waad niyo jebisay waad qalbi jebisay waxaad ku samaysay waxaan waraaba adhi ku samayn waayo duniday kaaga yimaadeen masaad tidhi shantii galabnimo bal xitaa waktigaad xilligaa dadka u sheegaysa ka waran dadkii intaanu halkaasaan layf ka soo galan oo aan idhaahnaa ha soo dhaweeya ra-iisul wasaarey baa noo yimi nabad iyo nolol hala diyaar garo waar soo kaca holin baa laga soo cararay denmark sweden jarmal baa laga soo cararay waxaa laga soo cararay meesha austri dee yurub oo dhan waa garanaysaanba waa dadka halkaa isugu yimi malaa 1,000 qof oo soomaali oo middo meel ka yimi oo qaar marka 2,000 meelaha oo mid kastaabay soo qalbi jabsan gaadhigiisi dib u kaxaysta shantii galabnimo ayuu wuxuu yidhi xafladdii waa la baajiyey ummadda miyay qabataa mase haba baajiyabe markii dambana askartii uu ku ilaalin lahaa xafladda ayaaba ku ballamiyeyba hodheelu inuu dahotel yidhaah saa qof bita soomaaliya dimarbad qof dib loo tuuraya annagu maasha allah gallayba oo deen laba sii daaba dee gallay laakiin waxaanu ka cadhaysanahay waxa weeyaan waxa ficiladu ku dhaqmayo ninka safiirka sheeganaya iyo inanka yar ee xooghayaha u ah inankaana atansiyoon ra-iisul wasaare haddaad nabad iyo nolol baa tahay qaranka haddaad doonaysa inuu hore u socdo maasha allah horena u socdo guulaysta dadkaa iska tuura annagu waxbana idinkama rabno mana naqaan ninkan yare cumar iyo waxba idinka qarin maaye qasaman billaahi alcadiim ilaahay baa igaga sarreeya waa garanaysaan ninkan idila hadlaya waa cabdiraxmaan aadan waa cabdisalaan gentleman anna ibraahim baanay wallaahi waxaa nagu taqaanaan xalaal waxaa nagu taqaanaan bal ka waran ra-iisul wasaare aad la kulanto oo aanu ku nidhi oo keliya labadaa qodobadaa noo qabo waa maxaabiis 13 sannadood yaman ku xidhan waa inamo uganda naga xidhan aanu dantayda u sheegnay okay laa shukra cala alwaajib ku faani mayno inuu warqad yar nagaga qortay oo notebooga oo ra-iisul wasaaruhu naga aqbalay waxaan idiin sheegayaa safiir dhan ayaa soo baxay oo wuxuu ku leeyahy waryaa shiina culay oo aanu ku ciyaarayno oo maalinna reer iska qabsada maalinna cabdiweli gaas yidhaahdaa xaaji cabdi cabdikhadar maalina yidhaahda farmaajo waa reer hebel maalin oo wuxuu doono ku hadlaa ayaa annagu ismaba oginba show shiina culay waaba shaydaan wiisusay safiirkiisii dee u fadhiyey xafladda markaasuu yidhi safiirku intu soo baxay wallaahi baanan idinka qarinin ilaahay ba igo soomaaliya ilaahay ba igu og wasiirka amnigu markaa la taagan yahay islow ducaale ayuu cabdisalaan la taagan yahay iyo dad kale oo mujtamac soomaaliyeeda markaasaa wuxuu yidhi aad u dhegaysta hadalkayga meel walba wuu gelayaa si fiican laakiin ii fahma wuxuu yidhi waryaa shiina awey hadda waa safiirkiya garo markaa odayaal waaweyn oo aanu ixtiraamayno on iska horreysiinayna annagu odayaal waaweyn oo dee da-a oo kornayla iyo wasiira iyo xideel soomaaliya ka hayn jiray oo dadkii dhaxalka noo sameeyey ahaa ayaan leeyahay cabdisalaanow odayaashu hay naga horreeyaan maadaamay meesha buuqtay su cabdisalaan igu yidhi waaye wasiirkana la iskala sheekaysanayaa kursigee wasiir islow ducaale oo isagana aanu meesha ha galaan waayo odayaashu walaal waanu isla qaadanay
odayaashii oo taagtaagan ayuu waa safiirkii soomaaliya bilsham ayaa leh waraa shiine adeer duqa xagga istaag no xagga istaag cabdisalaam baanu maasan ku war yaa ahe war waa maxay wasiirka shiine cule u yeedhayaa safiirka wasiirkii annagaa wada joognayba wasiirka cabdisalaam bay wada joogeyne marka waynu dunnay meelahaynu ka baaba'nay waxaa ka mid ah qof aan shaksiyad lahayn maa cindu shaksiya qof aan personality lahayn ayaa meel walba inoo fadhiya bal safiirka ka waran walaale anigu waxaa kuma sii fogaanayo shino culayna dadkaa shacabkaa dee unbuu ka mid yahay meelaha ka hadla laakiin waxaa dhibaataduba tahay oo dee mushkilada dalka biljamka soomaali waxa yeelayaaba anigu maskaxdeeda waxaa ka daadegi laha nabadgelyada biljam oo meershalola wax laado ku jira ama xaalad waad garan karaysaan xaalad degdeg ah ama xaalad emergency ah ayaa soomaaliba ra-iisul wasaare iyo wax ku mudaharaad taasaaba aniga marka horeba wallahi igaba daadegiba weydiiba faransiis waad ogtihiin qaraxyaa beri dhexaasa ka dhacay xaalad degdega bay ku jiraan boolis baa meel kastaba taagan wallahi madaxa xabad laaga dhufanayaba halkana xaflad baad sheegaysaa wadada qofka idhaahdo wax yar baanu samaynaynaa wari madaxa laga jooganaya marka haddee niman baqanaya taasu dee waa fulinimo anigu fulinimada ma aqaan qof baan safiirkaasuna fulayuunbuu noqday nin baqanayoo leh xafladii baanan qaban karayn dee haddaad baqanaysaa maa dowladahaba lasoo doontaa iyo arrimaha dowladdaba ilaa adigay waajibkaaga ahayd inaad xafladda qabatid adeer waxbaha baqan haddaad baqanaysid dee xilkan nin geesiyo wax qaban karaya u dhiib shaydaan sise iyo isbaara iyo qof baa halkan iyo ha biqlayso gruub iyo war adeer haddii ni or dadkan gormaa laga baqaa horta anugu waxaabaan ma garanaya dee soomaali laga baqanayo wadankii baana kaga baqan karay halkana soomaali inaga daanu dhamin ina soomaalida horta qabiilka laga baqaa soomaalida waa kay iyo qofka laga baqa war ilaahay baa laga baqaatay soomaali meelaha ka bacbaclayo qaxoontiyo hadduu baqan karaya muu meelaha wax ka sameeyo soomaaliga wax cid ku samayn karaysaa wanigu shaksiyan cabdisalaam baan oo cidda baqanaysa iyo qof baa baqanaya iyo waxaa ceeb baanu aqaanaa iyo nin baa waxaa samaynaya iyo dee 40 inan oo gacan fudud baa xitaa la diyaarsadaaba maamulada xafladahooda qabsada waad ceebaysay ra-iisul wasaarihii kaagan safiirka sheeganayo waanad la shaqaynaysay nimankan tiimna waa wada tiimba ma waxaa la waayilaa inama gacan fudud baa jooga biljam iyo dowladdaaba ku ilaalinaysaba laakiin hebel baan ka baqayo xaalad ammaanka yaa u ilaaliyo waa kuwaas markaa attention waxaan kusoo gabagabaynaynaa waxaan leeyahay guliyo gobnimo qabyaalaystu down qabiilna qabiilada waxba kuma samayn karo qofna qof waxba kuma samayn karo ra-iisul wasaare xasan cali khayrana wuxuu ku yimi kartidiisa iyo ragnimadiisa maasha allah laakiinse shaarkiisii waxa wasakhaynaya nin baqanaya oo u haystaba ra-iisul wasaaruhu inuu qabiil yahay inankaa yara cumar yarana dhammaan ummadda soomaaliyeed ee halkaa iga daawanayse 600 gaadhaysaa ilaahay baan idinku dhaariyey haddaa wadaniintiin dhammaantiin cumar yara down waa eg xaalad yar baa jirtay caadi baan idinku sheegaya cumar yare waa shaydaan wisuusay haddaadna taageersantiin oo dadnimo iyo damiir idinku jiro dhammaantiin macal facebookadana cumar yare down kusoo qora iminkana soo qora ها ولا مستر عمر وان وضع ما شاء الله عمر يرنا لبحنا ما شبلنا ما لبحنا مجرى شبلنا مجرى وحن أوردن هذا الكبر بدر منه وروح أو مدة وتشبيه وهالك أو مدة ما أنت بهدلي ولا رئيس الوزراء بهدلي وأنا كاس فيرك شيئا يبقى يبقى وندمي هذا الكي آد السلامية إبراهيم وهذا قدر يصير وكبح واديات والله دمان وان السلامينا إن كان يري وسيمبل وحيارو حنين شيء وحيارو أن ماشي كسوف فهمي isagoo cumar yare xoog haye laga dhigay ayuu annaga dagaal waxaad mooddaa inaan waan u fiirsado tartiib inamadii daacadda ahaa ee meesha joogay baa noo sheego markaas waa ninkan wuxuu idinkula dagaalsan yihi waa nimanka shaydaan wisuusay bixiyey baa tii shaydaan wisuusay nimanka bixiyey baa tii markaasaan oo maxaa ka galay isagu xoog hayey ra-iisul wasaaraha la socday marka والله أنا أرتاح كا كفجان ما يبرهن ويدل فردية وأنا أقول عمر يرى شدة وسيس كميت بان واقعنا يوحبا ودي قبيلته ينقول فجاتي صومالي عمر يرى شدة وسيس وحبا حافظنا هلو يسودو لكن سفير كم بان لا يبقانا يا أدر ماشي سكبر هلو
salaam gentleman. waa guddoon sare anaguna sidoo kale aad baan kuu salaanay saaxiib anagoo kasii baxayna baad nagu soo beegantay maasha allah. dib ma lahan aad iyo aad Ibrahim aad baan ila salaamay dawladasha dhammaantiina. rumaantii arrinka maanta dhacay aad baan oo la socday waxaan kuu soo wacayna sababta wixii dhacay ayay ahayd inaan kala hadlo iyo inaad gudaha ku jirto in kala ogaado. si fiican. waa la socday waana live live baan oo la socday waana maqlay waana runtii hadaladii ahaa gabdhaha qaaska faraha lagu wacayay in gudaha la geliyo la doonayay askarta kale loo wacay meesha bulshada waa maqlay dhibaatada meesha ka dhacday aad baan oo la socday. halkaa walaal ilaahay khayr ku siiyo haye codkaagana kor yara qaad weliba. aad iyo aad baan oo la socday arrinta albaabta askarta albaabkooda taagnaayeen si qaas baan oo la socday gabdhaha faraha lagu wacay oo hiblaayaha la soo dheeradhahay qaas baan oo la socday aad baan u dhegeystay aad baan oo la socday waan arkay mafahad. waan garta. waana sidaa sheegteen arrinta waxaa sameeyey ra-iisul wasaarahana ma aha waa dadka maamulka gacanta ku haya sida qaaska u sameynaya maamulka ama dadka soo wada dhabeynaya ayaa si khaldan dad kusoo dhabeynaya mafahad. waan garta. si habboona oo munaasabka ma ahayn waana arrinta kale oo khilaafka kale meesha ka jira oo dadkaan nabaddiidkii kala ahaayo nabadda doonaya oo foodo uga soo dega dalka holland way waan garta. dad horey ugu sii joogeen magaalada Bristol ma fahad. waan garta. marka muhiimadda markaa waxay ahayd taas waxaa ka sii weyneed muhiimadda kale dhibaatada dadkaan yaryarkood nabaddiidka ah haddii aan hadalkooda xagga iska dhigo muhiimadda ka sii weyn oo liiday ra-iisul wasaaraha shirka ummadda Soomaaliyeed u qaban lahaa waa dadka gacanta maamulka gacanta ku haya muhiimadda ugu weyn ani eedda ku tuuray dadkaas ayay ahaayeen dadkaasna dee way noo muuqdeen wixii ka soo tahay ninkan Cumar ahaa wuxuu sameynayay dadka maamulka u hayeen oo shirka qabanayay qaabkay ugu talagaleen iyo qaabkay u dhigeen qaab qaldan beed waxa loogu talagalay in ra-iisul wasaaraha sida fatalka loogu xiro ma fahad. allah ku sharfo allah ku raka adigu waxaad tahay soo maha jaaliyadan biljan ku nool ayaan u malanayaa. biljanka kuma nooli laakiin aad baan oola socday si camera private camera aad ugula socday wax walba dhaqdhaqaaqa meesha ka dhacay. ha allah yacisek allah ku sharfo walaal haye. marka waxaan ummadda Soomaaliyeed oo daawanaysa dhammaan wada sheegaa waxay tahay arrinta ra-iisul wasaaraha luguma lahan ra-iisul wasaaraha shirkiisa aad u badnaa uu kula galayay dadka madaxda Yurubaha aad madaxda waaweyn oo shirarka la galaya aad u badneed jaaniska keli uu yeeshay jaaniska keli ayay ahayd inuu ummadda waqti yar la qaato wixii uu su'aalay wixii fariin loo kala qaato asagana fariin ooga tago Soomaalida laakiin maamulkii hoolkii dadkii sameynayay oo organizationka wixii dhan organize gareynayay ayaa qaladka dadka bilaw ayagana way ugu talagaleen arrinka inuu soo dhaco si sharafna madaxweynuhu ra-iisul wasaaraha shir meeshaas ugu qabto ooga dhaco waa arrin lagu lug lahaa. ha shirqooladii bay ka mid tahay dowladdan uu loo dhigeeyay soo maaha. laakiin ka waran axmedow hal su-aal baan kaa weydiinaya walaal meeshan waa Belgium annaga iminka kulley ku sugan dabcan wararkana waa la hayaa Yurub oo dhan qof Soomaaliyana amni khalkhal ma gelin karo ka waran qof Soomaaliyana dal iyo mid Marookiyaana ma khalkhal gelin karin maasha Allah dalkan iminka wuxuu ku jiraa xaalad la yiraahdo martial law ama emergency state wax la yiraahdo marka walaal arrinku wuxuu buu ahaa bal ka waran xukuumadda niman sheeganaya oo safiir waliba sheeganaya safiir ummadii Soomaaliyeed isku diray iyo xukuumadii nabad iyo nolol waa waxyaabaha had iyo jeer inagu soo noqnoqda nin dhinacna xukuumadii shaarkeedii sita ummadii iyo iskana hor keenaya iyo xukuumadda halka dabcan anagu ummadooda ma lihin de maxaan loo qaabilayo nala aqbalba oo la kulano ra-iisul wasaarihina saragnay codsiyadeen sinina dabcan qayb gudbinay laakiin se bahdilaadii ummadda Soomaaliyeed bartaa kaga dhacday waxay noqotay waxaan la yaabnoo fajicisaa war xaflad been isku ogeyn shantii galabnimo xafladii safiirkii baa baajiyay maxaa dee yaa wax samayn karayay marka walaal wuxuu baad arkaysaa ninka hadii safiirka bay shaqadiisa ahayd. Jaltamaano aad baan ula socday hadalkaaga aad baan la socdaa hadalkaaga dadka waa rumaysanaya waxaan ku beedeysanaya maaha intaan ku soo wicin baa la socday sababta aan ku soo wacayo waxaan xaaladiina iyo meesha taagantii waxa la kulantay baan ku raysan rabay laakiin si live baan ula socday waxaad ku hadlayso dhan waa wax saxsan oo xaqiiqatan ahaayo kaamiradeedana ahaayo waay hadalada codkii meesha ka dhacay dhan baan u ahaayaa xaqiiqatan ah hataa codka hataa muusan cod shakhsi qaas ma hele cod qabiil inta qabiil lagu kala hadlaya hataa codkooda ahaya aad iyo aad allah ya ciise فريد الله يفتح laga soo deynayba wuxuu wala arkayba
waa inay heble soo inantaas qoladaa soo daa waa safiir الله يعزك الله كل maxaad dee qarinba safiir soo baxay oo kule inantaa reer hebel soo daaya inantii qabiilka ahayd ee la dhan ka timi meeday war meeshan qabiil baa lagu gelaybse nabadiina waliya taageerayaasha dowladda aad iyo aad baan noola socda arrinkaas idinka aad baad ugu mahadsantihiin sidaad isku xilqaabteen soomaalinimada aad meesha u tagteen laakiin arrinkan ninkan safiirka ah arrinkan iyo dadka maamulka la waday oo shirka la qabanqaabinaya iyo hoolka la qabanqaabinaya arrintan ku socon lahaa waxay sameeyeen wax khaldan bahe siday u dhigeen si khaldan bahe si ummad soomaaliyeed ama magaca soomaaliyeed ku dhigeen sumada muusan ahayn sida loo duuduuban oo arrinka usoo jeediy hadalkiisa u xiran arrinka sakuur la-aantana dee dalkeena dembi ka muusan gelin dalka ku nool yahay dembi u gala taas laftigeeda sharci maxkamad lagu saari karaa waayo dalkuu joogo amni baa ka jiro sharci baa ka jiro inuu ku tilmaamo amni la-aan laga baqaya amni war waa su-aal wallahi ninkan waa sharci yaqaan ninka safiirka sheeganaya soomaali weliba dal kala jooga waan isla fahmaynaya ayaa amniga khalkhal gelinaya biljam jarmalka aqoon baa u leenahay adduunka sharci baa ka jiro soomaali maaha meeshan maamul goboleed ma aha waddan wuxuu jooga adduunka ka mid yahay oo adduunka deeqda caalamka oo European Union ka mid tahay marka waddanku ku tilmaamay sharci ma jiro shirka waan baajiyey haddii arrin ugu talagalay inuu ku xumeeyo ra-iisul wasaare laakiin wuxuu arrin shaati kalu qabay laakiin shaati dowladnimo muusan qabin اوكي ورا احمد او ادويغا راليا مدحوينه محمد عبد الله محمد فرماجو markuu gurceel iyo meesha iyo marayay iyo dhuusamareeb iyo boosaas ee loo digay marba iyo qardho ee uu lahaa ninka la yiraahdo in shaydaan wisusay wallahi gurceel ma iman karo cadaad ma iman karo dhuusamareeb ma iman karo firi wala socona waxay sameeyeen socdaalkii madaxweynaha laftiisa lagu sameeyay waa sameeyay qaarkood tabeeleen u tagnay laga fujinay wad la socoteen kaamiradaas xataa اوكي مياي dhacday sawtii hadana in caanaha geela loogu lisayay way dhacday dad baa doonayna waxa qasad isla dadkii oo kale la mid baa meesha wixii qasaha ninkana shaati kale ayuu xirtay sida munaasabkii Soomaaliyeed weyneed oo ugu talagalay shirki weyn iyo holki weyn qof walba Soomaali ah muxaafid ila wala mucaarad inuu ka soo qayb galay rasuulkiisa loogu talagalay ayaa la meeshaas ka uu ka bixiyay meenadu waxay tahay wuxuu dadkii meeshaas dhan baa wuxuu ka dhigay yani Soomaalida meesha ku noolaa wuxuu ka dhigay dadana jirin warn dhibaato kale nama qabsane safiir shaydaan wisusay la marxabeeyay safiir shaydaan si ka baqanaya oo la hadlayo u leeyahay dadka ma ka saartay meesha sheekadan aad baa loola socday qabanqaabadeeda Soomaalida aad baa loola socday dadka India wada aadeen aad baa loola socday social media aad baa loogu waday in dhammaan loo wada fahmo ummadda Soomaaliya meel wada joogto ka qayb gasho wixii su'aal qabin ra-iisul wasaare su'aal weydiiyaan wixii fariin dalka ugu sii dhiibeen dalkiina fariin u sii dhiibeen wixii fariin dalka uu inuu meesha ugu reebo waxyaalo macluumaad badan oo Soomaalida qurba joogto uu kala hadlo shakhsiyan asaga madax u yahay marka mucaarad ila wala muxaafid ila mucaarad kullu meesha inay wada yimaadaan beed qof walba albaab ku furnaado hoolkaas la furo albaabka uu furnaado laakiin askarta meesha taagneed amniga kaliya in ilaaliso qofkii dhibaato meesha ku kana amni la'aan in la qabto laakiin waxa uu arkaa arrinta dhan in laga dhigay arrin maaragtay farqu tilmaamisa arrinta dhan loo soo jeedo wixii dhan maaragtay cagta u qasay waa meesha tigaga muuqata aniga amni la'aan kama dhicin amni la'aan ma waxa meesha ka dhacay aad iyo aad baad u maasantay sida wanaagsan aad baa oo qayb gashay barnaamijka aad iyo aad baan iigu salaam idinka daawadayaasha hayo walaal hay guuliyo gobonimo aad iyo aad baad u maasantay fariid ma sha Allah kaas wuxuu ahaa Axmed Cumar waa siyaasi daayir oo wadani xalaal ma sha Allah walaal dhibaato kale ma dhicin laakiin qofka xun aan dadka qarino ma jeclin runta fiican ma sha Allah geesnimadu waxay tii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gobolada dhexe ama gobolada Soomaaliyeed wuxuu lahaa halka ma tagi karo halka ma mari karo ka warrama ninka maanta yiri Belgium baa nabadgeliyadeeda qof Soomaali wax yeelaya waxaanu gees waxaan waqana ninka sidii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kale dadkiisa shacabkiisa marxabaysiya oo dhamaan soo dhaweey meel dhawato waad arkaysin way dhacdaa inta badan madaxweynaha qaranka la hadaayo oo Allah karaameeyo maalinta dhawadu beledweyn soo booqanayay gabadh askariyada ayaa waxay damacday oo damacan wadaniyada ma sha Allah oo xalaala oo qiraysan oo shucuur leh waa dadkii maanta halka nagu soo dhaweynay ummadeeda dhan waanu jecelnahay laakiin siyaasi xun ama safiira sheegta ama wuxuu doonaa sheegtay ma jeclin madaxweynuhu muxuu sameeyay mid askariya baa sidii inantii ka jooji askariyada ahayd qoftii dumarka ahayd waa kii gacanta iska qabtay ee madaxweynuhu dhunkanayay ma sha Allah ee uu soo dhaweynay lahaa Allah baar intaasay ku farxaysay
ee iyaduna inantiina madaxweynaha ku lahayd mudane madaxweyne waad ku mahadsan tahay saad noogu soo gurmatay maanta ra-iisul wasaare khayre waxa bahdilay gabadhii fariidda ahayd baa halkaas soo gashay alla ya ciisag nabad iyo nolol wax allaala wixii bartaa ka dhacay maanta biljamka waxa mas-uuliyaddeeda dusha ku qaadanaya ninkaa safiirka siciid cali fiqi baa la yidhaahdaa ummadda soomaaliyeedna ha ogaato shaydaan wisuusayna telefoon buu kula hadlayay waanuna isagaa yidhi bahdil yaan xaflad la dhigin wuuna ka baqaa wuxuu soo dirtay shiina culayna yaroo waxaasoo xuskiisaaba xunay walaalayaal anagu noocaasaanu ka hadalnaa maanta may qabanayn ummadda soomaaliyeed ra-iisul wasaarahoodii oo weliba in dadka laysu soo dhoweeyo inuu nin safiir idhaahdo inantaa qoladaasee reer hebel meelay oo codkiisii la maqlayaba ha la soo daayo iyo xaflad lama qaban karo iyo inuu idhaahdo 5tii galabnimo xafladdii 7 casho la baafinayey inuu idhaahdo 5tii galabnimo xafladdii waa la joojiyey mayna qabataa safiirna uu inoo sheeganaya soomaali uu safiir ku sheego nin baqanaya maaha inuu safiir noqdo oo cid ka baqanaya hallo yes ها ورمع التعب والربا لايف بان كتير والله اوكي هاي سوى يا هيا فريد قبني وان سوعنا shaqadiisa qofka cadeynaya waradeer waxyaabaha qaar baan marmarsiya laga dhigi karin biljamon sloognahay iyo Yurub oo dhan ayaa nin yar oo Soomaaliya khalkhal gelin kara wallahi dalka laftigiisu ciibay biljam buu ciibay haddii ciid khalkhal wax gelin karayso ma hoteelkii madaxweynuhu joogay dadkii halkaa ka barooranaya bartaa joogay iyaan lahayn hebelkan soo daaye war qofka noo sii daaye eenagana karaameynay eenna haystaaniga Ibrahim waar cabs gentleman nabadiina loo sultaan laga hor istaagay war holan baanu ka nimi waa barakeysantiin Allah idin ciiseeyo dadkii Soomaaliyeed ee sharafta lahaa ee ka yimi holan ka yimi Denmark odayaal waaweyn masha Allah aad baan wallahi halkan ugu salaamaya waa iyagoo odayaal waaweynabay nalahaayaan waa bal idinku naga horeeya war maxaa inax qabsaday irida markaasaan lahayn odayagan geliya mar walba iyagan iska horreysiinayni dhibaatada jirta safiir soo baxa oo yidhaahda qolamaa tahay waan salaamina walaalayaal ma sha Allah kulleeda telefoonada dadka guuliyo gabanimo meel walba joogta bishaara cali khaliif gabadhaas waa wadaniyad xalaalo dhaba waanu waramayna waa dadka nabad iyo nolol annagu dadka gees lagu yee qabiilna gees kuma nihin mana naqaan qabiil sida safiirkana ma nidhaahno tani waa qoladaas soo daayay waxa wuxuu dhacan walaalayaal dadkeenii faraxsanaa ma sha Allah iyo ra'iisul wasaaraha hawl qaran dalkan u yimi ayay ummadda Soomaaliyeed baan rabaa inaan la kulmo xafladana hore loo sii diyaariyay xafladiiba error waxa geliyay safiirkii dalkan joogayba bal qaybta ilaahay ummadii meel kastaba isaga timi ee la cilaamiyay xafladda khamiista dhacaysa waxaanay bilaamaysaa insha Allah taala 6 maqribnimo bilaamaysaa ilaa waxay soconaysaa 10 habeenimo ama 11 ummad oo dhan barta saasa ka qurux badan gobonimadii sharaftan saasay ku jirta nin safiirun baan ka soo boodo wuxuu no ma dhacayso amniga khalkhal baab leeyahay dabeetana waxay noqotay hoteelkii uu deganaa ra'iisul wasaaraha in xitaa ceebba dhacdaba oo ummadii hoteelka deganaa war waxaan absad lawaad dadkiina muxub ahaysay kalgacal way ku mahadsan dadku inay ra'iisul wasaarahooda la kulmaan oo ay isu soo kharash gareeyaan oo ay ra'iisul wasaarahooda arkaan waa wadaniyad ay ka mid yihiin madaxda la jeclaado dadkii bartaa ma qaadaya hoteelka markaa uu ra'iisul wasaaruhu degay oo cadaankii joogaan oo askartu hareeraha oo waa bahdila oo kadinka la wada taagan yahay kano markii dambana uu ninkii safiirka inanka yar Umar xoghayaa waana uu la socdaa Umar yare waa sirtan soo helay xogta inanka Umar yare lahaday xoghayaha uu ah ra'iisul wasaaraha wuxuu ka baqaa shaydaan usii waana isku fahmi xaababa looga badbaadayaba kaasaanu ka baqaa kaasaanu u shaqeeyaba kan fiqiga lagu sheegayaan wuxuu ka baqaa ka dibadna waxa xafladda halkaas ku baaqata waliba dadka xilli hore lama sii sheegin xalay habeen hore dadku yimaadeen caawadana ku jirna habeenkeedii ka horreysay galabtun baa la bedelay oo la wada labistay wuxuu galabtun baa 5tii la yidhiba anaguna waan markaan soo baxnay suuqii galwaar isu diyaarinay xaflad weyn baa qabanaysaa ma sha Allah ummadii Ilaahayba inta dadkana waxaan ugu jeceliin waxa weeyaan wadaniyada iyo Soomaalida xafladiiba waa baaqatay oo yaa baaji dee safiirka oo maxaa loo baajiyay dee waxa dhacday
amnigaa loo baqayo arrimo noocaas sooma biljam ba amnigiisa soomaaliya wax yeelay shaydaan wishbaa telefoon kula hadlaya ilaa safiirkan ilaa cumar yare waa sheekooyin la yaabaysaan marka waxaan leenahay xukuumadda iyo shacabka ay idinkuba gees ku tihiin ninkani safiir wixii dambe dee saa u safiir ku ahaan maayo laba kelmadood baanu ra-iisul wasaaraha ka gaadhsiinay oo ah inama maxaabiis oo yamana walaal hadalka ma warqad yar buu nagaga qortay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waan salaamaynaa walaal meela joogtaan guriga gobonimo